nin xaaji oo Soomaaliya xaj ku tagay baabuuro iyo tareenno iyo diyaarado badan iyo waxaas ma jiro wuxuu ka baxay Jidda Makka Madiino xaaskiisa yaa la socota markii uu ka soo noqday Madiina jidad laamiya xataa ma jirin dhulkaasu fakhri buu ahaa waagaas ayaa askari jidka istaajisay nimankii askarta ahaa ee bointiga joogay islaantii baa hunguri ka galay xaajigaas wadi way dejiyeen labadoodiiba markay dejiyeenna waxaa islaantii waa lagu xadgudbay way iska aamustay odagii dhinac baa la geliyey iyadana dhinac shibay tiri waxay tiri ama odagana lagaa dilaa balaayo kale intay ku raacdo ceebtii iyo xadgudubkii ama haddana odagana lagaa dilaa ya iska aamustay markay soo dhawaadeen oo gaari ka soo baxeen meeshii ayaa odagii u sheegtay odagii baa baxay ani xaadisada waxaa ii sheegay nin odaya oo da ah oo Soomaali ah oo dhulkaas dadkii ku koray 100 sano ka hor Xijaaz waxaa dhacday marka maxaa dhacday ninkii oo dee erdigiisii lagu xadgudbay oo caraysan oo miskiina baa yimi wuxuu imaaday Jidda subaxdiiba wuxuu tegey safaaradda Soomaalida safiirkii buu la wuxuu ku yiri saas ay ugu dhacday waa muwaadin Soomaali safiirka madaxu ruuxay waraaqihii wali maanan keenoo waxba ma aragtay wali wasaaradda iyo kamaana soo dhamaano meesi saas bal waa fiirinayna xaaladda waa fiirinayna nin odayaashii Soomaaliyeed oo hore ah oo dhiig lahaa oo dadnimada lahaa oo izada iyo sharafta yaqaanay ayaa hortiisa fadhiyay intuu ishayn waayay buu dharbaaxa safiirkii kaga soo gooyay labada indhood buu jaray kaasuu yiri غير مسؤول dameer ahbaata muwaadin baa ku yimi erdigiisii lagu xadgudbay waxaad meesha u fadhidaa isaga khidmadiisa weey markaasaa leedahay soo ninkii uu gacanta soo qabtay nin la yaqaanana uu ahaa soo kaxay wuxuu u keenay boqor Faysal oo markaas wuxuu yahay amiir dalkan Xijaaz markaa mas'uulka soo galay dhageysu yiri ninkan dhageysu ninkii talada wixii buu sheegay Faysal wiilkiisi kullu waa dhinteen hadda Sacuud al-Faysal dhigi jiray wasiir khaarijiye ahaan jiray oo markaa wiil yar oo isaga la shaqeeya u yar kaalay Sacuud bax diyaarad helicopter hal diyaarad bay haystaan qaado afartaan nin oo askarta meeshaas joogta soo xira keena taxqiiqiya arinteeda ii soo ogaaday wax yar hadii la keenay nimanka la soo qabtay wuu baxay ninkii nimanka soo tusay waa la keenay xogaa hadii la joogay waa qirteen arintii horagu gooyay buu afartoodaba hal salbiyo hana la dilo afartiiba waa la dilay markii la dilay ayaa meydaankii qisaasta Jidda lagu sameyn jiray dad baa yaqaanay reer Xijaaz joogi jiray ya meydaanul bay'a meel la yiraahdo Jidda bartamaheeda ku taalo waxa jirtay dadka qoorta qisaasta lagu sameeyo ama xuduudda lagu oofiyo halka ha lagu salbiyaa dadkoo dhamme hadda wadaan wax dhowr 68 meelahaas أسبوع وحكون دوي ماشي أفرتي أسكري صار ناين يقول ميدا تاس با وحي كانت iyo xawaadista la midka ah baa waxay keentay in qof dukaan kiis dhulkaas Xijaaz markay amaanka inuu marada intuu soo saaro dukaanka aan quful ku xirin iska dhaaf waxa ku jiray quful aan ku xirin hatta albaabka ma xiray mara busaa u saari bas salaadu aadi masaajidku aadi mana ka baqayo miftaax yar insaan looga qaado waxa dhacay gaf way gacantu anta maqan nina ku dhici maayo in la salbiyo dhulka ammaan way ما فهمتين حكمة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا وإن آد لو دلو بولي إلهي وثيقة مبالغة آد لو دلو ما هذا عي توقع قاتلك يا قاتلك هدون نبض قاله كن كلا كدن بيو ينا واحد دلاي
qabiilku hadduu hoos gashado oo yidhaahdo qisaas laga oofin maayo oo la xiri maayo oo la dili maayo hadduu yidhaahdo qabiilku ha ogaado qabiilka laftigiisa kun kale in laga dilaayo biqayri xaq ay ka dhimanayaan hal qof bay qisaastiisa diideen fasahaadda ay samaynayaan bal eeg odayaashaas qabiilkaas reerkaas fasahaadda ay isugu kaalmaynayaan taas wey walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha haddaad diiddo qisaada dhulkaad fasahaadisi haddaad diiddo tuugga in la qabto dhulkaad fasahaadisi haddaad diiddo taajirka xoolaha dhacaya oo dadka masaakiinta dhacaya oo khiyaanada samaynaya oo qishiga samaynaya oo daawada faasidka ah iyo raashinka faasidka ah oo dhacay ka gadaya min ajli in adeerkaa inuu yahay reerkaaga inuu yahay laaluush inuu bixiyey ama aad mas-uul tahay oo laaluush u qariso mufsid baa tahay adduunka fasahaadiyey dhulkii ilaahay baad ku cayaartay ood fasahaadisa hawadu haddii aynu urin lahayn urka fasahaadaada dadku ma joogi kareen way sakhraami lahaayeen urka fasahaadkaaga la sakhraami lahaayeen laakiin waynaan urinayn waynaan arki walaalayaal ma ku dhammayn karno kelmaddan ilaahay subxaana wa tacaala xikmadda uu leeyahay walaa tufsiduu fi اlardi bacda islaaxiha waa kelimad kooban dhulkan ilaahay wuxuu ku islaaxinayaa dhulka sharciga ilaahay kitaabka ilaahay daacada ilaahay sunnada iyo wanaagga kala dambaynta iyo nidaamka is-adeecidda iyo isnidaaminta khilaafka qatiicada fasahaadda dhiigga daadintiisa xaqdarrada ah oo waxyaalaha innaga maanta fasahaadda ugu weyno ina haysata ay ka mid tahay dhiiggaas daadanaya goormuu joogsan doonaa walaalayaal goorma ama aana alawaanu ayuha alikhwa soomaaliyey miyaan wakhtigii la gaarin alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri اllahi wama nazla min alxaq miyaan la gaarin inaan idhaahno tawba fasahaad wada ma adeecayo fikrad kuma adeecayo dil kuma adeecayo dhigdaadin kuma adeecayo khiyaano kuma adeecayo musuq maasuq kuma adeecayo kuma kaalmaynayo miyaan la gaarin inaynu fasahaadda ka baxno oo inaan dhulka ilaahay fasahaadin dhulkeenniiba fasahaad ku socota sidee naxariisu soo degaysa sidee ilaahu naxariisa dhiigga daadanaya maalin walba jidadkeennii ku daadanaya qarjaf masaajiduu ka baxay jid buu maray gurigiisii buu aaday jid buu maray meel buu maray dukaan buu aaday ganacsi buu aaday gabar miskiina wax iska iibsanaysa goorma fasahaad inay tahay ogaanaynaa alam yaani liladiina aamanuu takhshaca quluubuhum lidikri illah wama nazla min alxaq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم فقست قلوبهم قلبي هذه بقت كاذب هدان فساد لا يجوز قلبي قاعد كاذب القلوب قاسية أبعد القلوب عن الله تبارك وتعالى أما سجود أما الركوع والقلب القاسي قلبي أنا حريص سنين وفساد كدمانين إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنه نقدر وكوا صالحين وهم مصلحين إلهينا سبحانه وتعالى أنك مجنجليه إنا نقول فاسدين مفسدين إلهينا سبحانه وتعالى نجنا بديه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا ومن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين اللهم أصلح أمتنا وأمة المسلمين جميعا
يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم أصلحنا وأصلح بنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وصلوا وسلموا على الهادي البشير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.